dowladda dhexe ee dalka ayaa doonaysa in suuqa Gikomba ee deegaanka Kamakunji magaalada tani Nairobi ay ku xirto kameerada duubto muuqaaladda qarsoon ee loo yaqaano CCTV-da kadib markii ay goobtaasi ay dhowr jeer gubatay. Qandaraaslayaasha arrinkani loo xilsaaray ayaa la faray in 7 cisho ay ku soo gabagabeeyaan in suuqaasi ay ku rakibaan kameerada qarsoon. waxaa arrinkani looga gol leeyahay in laga hortago gubashada goobtaasi ganacsi oo Kenyaan badan u shaqo tagaan maalin walba. waxaa tallaabadani shaaca ka qaaday xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Karanja Kibicho kaasi oo kormeer ku tagay suuqa oo shalay dab qabsaday isla markaana ay wehelinayeen mudanaha laga soo doortay deegaan barlamaaneedka Kamakunji ismaamulka Nairobi oo ay xaafadda Islii ka tirsan tahay Yusuf Xasan Cabdi iyo agaasimaha guud ee maamulka loo xilsaaray maareynta howlaha caasimadda dalka ee NMS Maxamed Badi waxay dhamaantood ballan qaadeen in suuqa lagu xiri doono nalal iyo kameerada CCTV-da.